مرن أنا مش أركاني ها مراد مش أركاني iska arkaysaa qofka indhoolaha mis arag lahayn wax walba sida indhaha inaad isku qabato kala madow ma arkaayo sababtoo ah madowga laftirkiisa qofka inuu arag yeesho ayuu ku arkaya kalarkaas madowga ah marka waxba ma arkaayo macnaheedu ma aha madow ma aha ayuu waayahay qofka aan arag lahayn mis indhoolaha muxuu arkaa midaas waa mid maanta muuqaalkeena uu ku saabsan yahay ka hor inta muuqaal gudagal waxay ka codsaa muuqaalkeena like gareysaan asxaabta aan muuqaalka nasiib ku yeelna gaartana aan muuqaalka alla wadaagtaan qofka indhoolaha waxyaabaha uu arko dad badan ayaa si qaldan u fahansan sida marka qaar ay u arkaan qofka inuu qol mugdi oo ku jiro kala mugdi inuu yahay kala ma aha sidaas oo kale ma aha marka guud ahaan qofka markuu arag lahayn mis indhoolaha ahayn laba nooc ayaa loo kala saaraa qof inuu ku dhashay markuu dhalanayo arag uusan lahayn indhoola aha ama asigoo arag la indhoolaha ama cudur indhaha ku dhacay kadibna aragga sidaas uu ku waayay labadaas ayaa loo kala saaraa mid walbana siyaabuhu u kala arko way ku kala duwan yihiin ayadoo mid guud ay ka wada sameeyeen yihiin ay jirto qofka markuu ku dhashay inuu waxba uusan arkaynin oo markuu dhalanayo arag uusan lahayn wax oo khibrad uu ka haysto ma leh aragga uu ka duwan yahay qofka markii uu muddo wax soo arka sanadooyin badan soo arka hal mar cudur indhaha ku dhaco aragga sidaas ku kala duwan yihiin qofka aan waxba arkaynin waxba macnaheedu maxaa waaye tusaale ahaan waxaan rabaa inaan kuu sheego hal ilaa gacanta ku dabooshid ishaan aad gacanta ku daboosho maxaa ka aragtaa waxba kama aragtid si kale ka fudud dhabarkaaga wax ku yaalo hadeertaan adoo hortaada fiirinayo maxaa ka aragtaa waa waxba madow kama aragtid waxba ayaad ka aragtaa waxba sidaasna u fahanteen aan rabaa wax laga arko waa maskaxda waa indhaheena iftiinka aragga way gudbiyaan maskaxda qayb aragga qaabilsan ayaa ku taalo midaas ayaa waa inta soo tafsiiriso qofku wax uu arkayo midaas inta badan qofku wuu u joogaa oo maskaxda qaybta wax laga arko qofka marka waxba uusan arkaynin oo ku dhasho waxyaabo uu sawiranayaa jirto asigoo weliba sida anaga wax u sawirnayna qaab ka duwan u sawirnayo haddana sawir caadiga oo ama muuqaal ahaan qofka uma arkaayo inkastoo dad yaris ay jiraan xitaa oo markay dhawaaqa maqlaan dhawaaqi uu baxayo oo echo la yiraahdo oo qaybta meesha aragga uu tagayo kadibna uu sidaas xitaa qofku uu ku arki karo dadka qaar waxay aaminsan yihiin quraafaad tusaale ahaan dadka qaar waxaa arkaysa oo ku dhahayo qofkaas aragga ka tagay caraftiisa mise dhagihiisa loogu ziyaadiyay oo qofku waxay ka dhigayaan qof awood aan caadi ahayn leh oo markuu wada marayo kale shanqar meel yar ka maqashay xataa jiqjiq uu maqlaayo waxyaabaha qaar oo filmaanta aad ka maqashay ama quraafaadka sheekooyinka aad aaminsantiin inta badan wax kama jiro qofkaas arag lahayn mise indhoolaha sida caadiga adiga tahay uu dareemay awood oo cajiiba ma lahan waxaa la mid ah dadka qaar inay su'aalaan qofka markuu indhoolaha mise arag la'aan yahay inay weydiinayaan sidee dharka u gashataa allah sidee u nooshahay marka wadada socoto maxaa aragtaa ay u maleeyaan qof uu murugo ku nool ma aha qofkan aragti u gooniyo leh faraxsan yihiin oo kuma jiraan nolol oo murugo walwala kuma aysan jiraan intooda badan مرن أنا مش أركاني ها مراد مش أركاني iska arkaysaa haddana dadka inta badan ayagoo arag leh aragga uu ka tago way ka duwan yihiin oo dadkaas maadaama aragga hore haysteen markay xataa caadi ahaan ay hurdayaan oo kale ama marka qaar ay iska joogaan xataa waxaa laga yaabaa sida caadiga oo qofka wax ay arki jireen inay sawirtaan oo riyo xataa markay riyoonayaan sida saxda oo adiga u riyootid ay u arkayaan iyadoo laftirkeeda cudurrada markaas ku dhacay ku kala duwan yihiin dadka qaar waxay u arkayaan wax iftiin oo kale inay arkaan oo kale light perception leedahay iftiin ahaan way arkayaan oo badanaa dadka oo iftiinka aan badanaa aan dareemin aad u yar yihiin xataa iyagoo caadi iska socda haddii iftiin lagu iftiimiyo meesha iftiin ka imaanayso qoraxda meesha ka imaanaysa inta badan way dareemaan haddaysan qofka isha laga saarin qofka asigoo arag lahaa oo arag ka taga laftirkeeda marxalad kala duwan iyo qaab kala duwan jirta qaar ay waxu arkaan oo neerfaha kale cuduro ku dhaco kale inay arkaan tubayris ay wax ka fiinayo kale oo meelaysa wax ka arkayaan oo kale inay u arkaan dadka qaar ay arkayaan oo kale in ay nal cagaar oo kale waxyaabo qaar ay sawiranayaan ayagoo og in oo sida saxda ah waxyaabaha ka hor muuqdana sidaas ahayn oo intooda badan maskaxda sawir ay ka sawiranayaan ay tahay dadka u jeedido dhan oo dhulka socdo oo indhoolayaasha xataa qori ku socdo intooda arag ay leeyihiin qof qol mugdiya ku dhex jira male mid walba arag u gooniya uu leeyahay markaas oo sigaaba kala duwan ayuu wax u arkaa sidee u aragtiin anigoo dhakhtar indha ah haddii aan barnaamij aan ku soo casuumo qof ku dhashay weligiis inuusan waxba arkin iyo qof asigoo arag lahaa oo cuduro arag kaga dhaca arag sidaas uu ku waayay labadooda su'aal anigoo dhakhtar indha ahaan aan weydiinayo barnaamij noocaas oo kale inaan idiin soo gudbiyo sidee u aragtiin qaybta community nula wadaaga fikirkiina haddii aad muuqaal ka faa'iidaystay like noo sar meel walba adduunka joogtiin waxaan idin rajaa caafimaad iyo indhafiyo